mukhtaar tuure oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabelle oo la hadlay radio kulmiye ayaa tilmaamay inay haysato shacabka ku nool deegaanada Hirshabelle dhibaatooyin fara badan kuwa ay ka mid yihiin adeegyada bulshada, amniga iyo guud ahaan horumarinta deegaanada. Xildhibaanada Hirshabelle iyo baarlamaanka guud ahaan ayuu ugu baaqay inay isku yimaadaan kulamadoodii caadiga ah maadaama dhowr jeer hore uu baaqday baarlamaanka Hirshabelle kulanku yeelan lahaa loona baahan yahay buu yiri in wax laga qabto dhibaatooyinka iminka ay tirsanayaan shacabka ay matalaan. Intaa waxa uu ku daray hadalkiisa haddii aan wax laga qaban dhibaatooyinka iminka haysata shacabka Hirshabelle ay noqon doonto xaaladooda ugu dambeyntii mid aanan waxba laga qaban karin. Hirshabelle caqabadaha haysata xaq ilaahay ka haysata waxaan ilaahay naga badbaadiyay qarax aan haysan raxmartaas aan uga soonahay waxaa jira muxuu ahay arintaas qodob dastuuri ah oo qodobka 31 ah ayaa jaban wax badan oo qodobada dastuurka ah anagu aan ku heshiinay oo ay kamid ahayd xukuumadda mar alla markii la dhiso guddiga madaxii banaanay in la dhiso oo xukuumaddaas ay dhisto oo madaxweynuhu soo qadimo intuuna asagoo guddiyada madaxa banaan una magacaabin arintaas ayaa ciidana ka sii muhiimsan wax laga qabtaa ma jirto marka shacabka intaas la wadaaga wax aan hayno oo tala ah in aysan jirin waxa ugu dambaysa maanta meel shaduun la yiraahdo oo jirta magaalada 12 kilomitir oo aeroboortka dhinaca bari uga aadanaya biyo ka soo baxan laamigay gooyeen qof bin aadan oo u gurmata amba isxil saartana ma jirto marka shacabka Soomaaliyeed ama ummadda aan ku metelna quraasta annaga wax meesha aan ku hayno hadda muuqda in aysan jirin intaas aan rabayna la wada marka baarlamaanka Hirshabelle waxaan ugu baaqaa si degdeg ah inay ku yimaadaan ummaddan ay u gargaaraan ay u qabtaan shaqadii ay lahaayeen ay qabtaan intaas ayaan ugu baaqaa dabcan laakiin xildhibaanadii muxuu ahay waxay u baahan yihiin wax waliba federaalkooda wasiiro ilaa 7 wasiir ayaa waxa ah xildhibaan ayaa waxa ah wasiiro wax caqabad oo ku imaan karta ma jirto hoggaan la'aan aan haysato anaga ama qoran noqoto ama baarlamaanka sharci dejinta noqoto. shacabka reer Hirshabelle ayaa goor hore cabasho ku aadan dhibaatooyinka ku xeeran ay jeediyeen kaasi oo la doonayo inay u istaagaan maamulka Hirshabelle iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wax ka qabashadeeda.